waxaa markasta jira meel ay caalamku u noqotay xarunta xiisadda siyaasadeed iyo mid amni. Maanta mid ka mid ah goobaha ugu khatarta badan waa Bariga Dhexe, gaar ahaan xiriirka Iiraan iyo Israa'iil. Xiisadda labadan dal waxay soo jirtay tobannaan sano, balse maanta waxay gaartay heer cusub oo halis ah, iyadoo dagaal toos ah ama mid dadban uu ka qarxi karo. Iiraan waa quwad Shiico ah oo ku fidsan gobolka, iyadoo leh taageero ciidan iyo mid dhaqaale oo gaara kooxaha hubaysan sida Xisbullah ee Lubnaan iyo xisbiyo kala duwan ee Iraaq iyo Hamas ee Gaza. Dhanka kale, Israa'iil waa dowlad awood ciidan iyo sirdoon leh oo taageero buuxa ka hesha Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka. Sannadihii la soo dhaafay, weeraro irka ah, qaraxyo, dilal qorshaysan iyo dagaallo dadban ayaa noqday wax caadi ah. Laakiin dhacdooyinka ugu dambeeyay sida weerarada irka ee ka dhacay Tehraan iyo Dimashq iyo jawaabaha adag ee Iiraan bixisay waxay muujinayaan in xiisadda aysan sii ahaan doonin mid dadban oo qarsoon, balse ay u gudbi karto dagaal toos ah oo horseedi kara dagaal weyn oo caalami ah. Sidaas darteed, su'aasha muhiimka ahi waa maxaa sababay in xiisadda Iiraan iyo Israa'iil ay gaarto heerkan? Yaa ka faa'iidaya? Halka ay ku dambayn karto xiisaddan? Ma noqon doontaa mid gobolka keliya ku koobnaata, mise waxay ka dhigi kartaa dunida mid ku wajahan dagaalka saddexaad ee dunida? Asalka xiisadda Iiraan iyo Israa'iil. Si loo fahmo halka ay maanta arrimuhu marayaan, waa in dib loo raacaa taariikhda xiisadda Iiraan iyo Israa'iil ka hor kacaankii Iiraan 1948 ilaa 1979, markii Israa'iil la aasaasay sannadkii 1948. Iiraan oo markaas xukumi jiray Shah Mohammad Reza Pahlavi waxay ahayd mid ka mid ah dowladaha Muslimka ah ee si rasmi ah u aqoonsaday Israa'iil. Xiriir siyaasadeed, ganacsi iyo militari ayaa jiray. Waxaa sidoo kale jiray xiriir sirdoon oo qoto dheer oo u dhexeeyay Mossad, Israa'iil iyo Safaag, sirdoonka Iiraan ee Shahga. Israa'iil waxay u aragtay Iiraan xulafadeeda ugu weyn ee Bariga Dhexe, halka Iiraan ay u arkaysay Israa'iil albaab ay ka gasho tiknoolajiyada reer galbeedka iyo hub casri ah. Kacaankii Islaamiga 1979, balse wax walba way isbedeleen markii uu dhacay kacaankii Islaamiga ee uu hogaaminayay Ayatollah Khomeini. Isla markiiba Iiraan waxay ku dhawaaqday inaysan Israa'iil aqoonsanayn, iyadoo ugu yeertay shaydaanka yar, halka Maraykanka uu ahaa shaydaanka weyn. Tan iyo markaas, xiriirkii labada dal wuxuu isu beddelay cadownimo joogto ah. Iiraan waxay bilowday inay taageerto kooxaha ka soo horjeeda Israa'iil, gaar ahaan Falastiin iyo Xisbullah ee Lubnaan. Qarnigii 21aad, hubka nukliyeerka iyo weerarada dadban. Markii la gaaray 2000, xiisadda ugu weyn waxay noqotay barnaamijka nukliyeer ee Iiraan. Israa'iil iyo Maraykanka waxay aaminsanaayeen in Iiraan ay doonayso inay samaysato hub nukliyeer ah, taasoo khatar weyn ku noqon lahayd jiritaanka Israa'iil. Waxay bilowday Israa'iil dagaal qarsoon oo ku salaysan sirdoon iyo dilal. Saynisyahano Iiraani ah ayaa lagu dilay gudaha Tehraan. Weeraro cyber ah, fayruska caanka ah ee Stuxnet ayaa la sheegay in Israa'iil iyo Maraykanka ay sameeyeen si uu u burburiyo mishiinada nukliyeerka Iiraan. Weeraro irka ah, Israa'iil waxay bartilmaameedsatay saldhigyo Iiraan ku leedahay Suuriya si aysan ugu hoogaysan gobolka. Marka laga eego taariikhda, xiisadda maanta ma ahan wax cusub.
balse waa natiijo 10 sano soo jiitamaysay. haddaba qaybta labaad waxaan ku eegi doonaa dhacdooyinka ugu dambeeyay ee xiisadda kor u qaaday kuwa sababay in caalamku maanta ka hadlo suurtagalnimada dagaal weyn. dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xiisadda Iiraan iyo Israa'iil. xiisadda labadan dal waxay gaartay heer cusub sanadihii ugu dambeeyay iyadoo ay jiraan dhacdooyin dhowr ah oo kiciyay xaaladda. dhacdooyinka kiciyay xiisaddan waxaa ka mid ah dilkii Qaasim Sulaymaani 2020kii. sanadkii 2020kii Maraykanka ayaa duqeymo ku dilay Generaal Qaasim Sulaymaani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus ee Iiraan. Sulaymaani wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay siyaasadda militariga ee Iiraan ee gobolka, gaar ahaan taageerada kooxaha sida Hezbollah iyo xisbiyada Shiicada Iiraan. Iiraan waxay ku dhawaaqday inay ka argudan doonto. Israa'iil waxay ka baqday in weerar toos ah lagu qaado. waxyaabaha xiisaddan kor u qaaday sidoo kale waxaa ka mid ah weeraradii Gaza iyo xiriirka Iiraan. markastoo Israa'iil iyo Hamas ay ku dagaalmaan Gaza, Iiraan waxaa lagu eedeynayaa in hub iyo dhaqaale siiso Hamas. 2021 iyo 2028 dagaalada Gaza waxay sare u qaadeen xiisadda, iyadoo Israa'iil si cad u sheegtay in Iiraan ay tahay gacanta qarsoon ee dagaalka. dhacdooyinka kale ee kor u qaaday xiisaddan sidoo kale waxaa ka mid ah weeraro ka dhacay Suuriya iyo Lubnaan. Israa'iil waxay marar badan duqeysay saldhigyo militari oo Iiraan ku leedahay gudaha Suuriya. 2022 iyo 2023 waxaa jiray weeraro waaweyn oo lagu bartilmaameedsaday keydka hubka Iiraan. Hezbollah ee Lubnaan oo ah xulufada ugu weyn ee Iiraan waxay qaaday weeraro hadka Israa'iil ah, taasoo cabsi gelisay in dagaal toos ah uu qarxo. waxaa kale oo xiisaddan kiciyay shidaalka iyo qaraxyada gudaha Iiraan. sanadihii u dambeeyay waxaa gudaha Iiraan ka dhacay qaraxyo iyo dabdamisyo lala xiriirinayo Israa'iil. warshado nukliyeer oo muhiim ah ayaa la qarxiyay. saynisyahano sare ayaa lagu toogtay Tehraan. Iiraan waxay ku eedeysay Israa'iil inkastoo aysan si toos ah u qiran. dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee 2024 ayaa sababay cabsi caalami ah. Iiraan waxay tijaabisay gantaalo cusub oo gaari kara gudaha Israa'iil. Israa'iil waxay samaysay weerar irka ah oo ka dhacay Suuriya, halkaas oo saraakiil Iiraan ah lagu dilay. dowladda Iiraan waxay ku dhawaaqday haddii Israa'iil mar kale ku soo hadgudubto dhulkayaga ama hulfadeena, jawaab adag ayaan ka bixin doonaa. dunida ayaa markaas si dhab ah uga hadashay suurtagalnimada dagaal weyn oo u dhexeeya labada dal. sida aad aragto, dhacdooyinkani waxay isu beddelayaan taxane sababaya in xiisadda korodho mar kasta. qaybta saddexaad waxaan ku falanqayn doonaa sababaha caalamiga ah ee xiisaddan. yaa ka dambeeya dagaalka goobaha cusub ee Bariga Dhexe? waa su'aasha ugu weyn ee taagan. sababaha caalamiga ah ee xiisadda Iiraan iyo Israa'iil. xiisadda labadan dal keliya kuma koobna xuduudnimada taariikhda ee gobolka, balse waxay si toos ah ugu xiran tahay dagaalka awoodaha waaweyn ee caalamka. Maraykanka iyo Israa'iil. Israa'iil waa xulufada ugu weyn ee Maraykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe. Maraykanka wuxuu siiyaa Israa'iil hub casri ah, dhaqaale iyo taageero siyaasadeed. xukuumad kasta oo Maraykanka ah waxay ku adkaysataa in ammaanka Israa'iil uu yahay khadka cas. taasi waxay Iiraan u aragtaa in Israa'iil aysan kaligeed dagaalamayn, balse ay dhabarka ku haysata awoodda ugu weyn ee dunida. Iiraan iyo Ruushka. Iiraan waxay hulfays istiraatiiji ah la samaysay Ruushka. labaduba waxay iska kaashadaan dagaalka Suuriya. Ruushka wuxuu taageeraa
barnaamijka nukliyeerka Iiraan si uu ugu dheelitiro awoodda Maraykanka iyo Israa'iil. Taasi waxay xiisadda ka dhigtay mid ka mid ah garabyada dagaalka goobaha cusub ee dunida. Shiinaha iyo dhaqaalaha. Shiinaha wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay shidaalka Iiraan. Beijing waxay diiday cunaqabataynta Maraykanka ee Iiraan. Heshiiskii 25 sano ee Shiinaha iyo Iiraan 2021 wuxuu ka dhigay in Iiraan ay hesho maalgelin iyo ilaalin dhaqaale. Taasi waxay Israa'iil ku dareensiisay in dagaalka uusan ahayn mid kaliya gobolka ku kooban. Khilaafka nukliyeerka. Israa'iil waxay ka baqaysaa in Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka, taasoo bedeli karta awoodda gobolka. Iiraan waxay ku andacoonaysaa in barnaamijkeedu yahay mid tamar nabadeed ah, laakiin xaqiiqadu waxay tahay haddii Iiraan hesho hub nukliyeer ah, Israa'iil waxay dareemaysaa in jiritaankeedii la su'aal gelin doono. Doorka caalamka Islaamka. Iiraan waxay isku aragtaa hogaamiye u taagan muslimiinta, gaar ahaan kuwa la dagaalamaya Israa'iil. Dowladaha Carabta qaarkood sida Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Masar waxay la safan yihiin Israa'iil si dadban, iyagoo ka baqaya saameynta Iiraan ee gobolka. Taasi waxay ka dhigaysaa dagaalka mid aan kaliya ahayn Iiraan vs Israa'iil, balse ah Iiraan vs qaar ka mid ah Carabta, lagu daray Israa'iil, lagu sii daray Maraykanka. Sida muuqata, xiisadda Iiraan iyo Israa'iil waa cayaaraha awoodaha dunida. Qaybta afaraad waxaan ku eegi doonaa halista dagaal weyn, meelaha uu dagaalku ka qarxi karo, iyo cawaaqibka caalamiga ah. Halista dagaal weyn iyo meelaha uu ka qarxi karo. Xiisadda Iiraan iyo Israa'iil ma ahan mid kaliya erayo siyaasadeed lagu koobo, balse waa qarax sugaya meel uu ka futo. Waxaa jira dhowr goobood oo dagaalku ka bilaaban karo. 1. Suuriya. Suuriya waa goobta ugu weyn ee labada dal ku hardamaan. Israa'iil waxay marar badan duqaysay saldhigyada Iiraan ee Suuriya, halka Iiraan ay halkaas ku taageerto maleeshiyaad badan. Hal weerar oo weyn oo Israa'iil fuliso oo ku beegsato saraakiil sare oo Iiraan ah Suuriya gudaheed wuxuu si toos ah u bilaabi karaa dagaal ballaaran. 2. Lubnaan. Hezbollah. Hezbollah waa gacanta labaad ee Iiraan ee gobolka, wuxuuna leeyahay kumanaan gantaal. Haddii Israa'iil iyo Hezbollah ay si buuxda isu galaan, dagaalkaasi wuxuu noqdaa mid gobolka oo dhan ku baaha. Qiyaas ama saadaalin in gantaalo culus ay ku dhacaan Tel Aviv, halka Israa'iilna ay burburiso qaybo badan oo Lubnaan ah. 3. Badda Cas iyo Khaliijka Carabta. Iiraan waxay ku hanjabtay inay hiri doonto marinbiyoodka Hormuz haddii cadaadiska lagu kordhiyo. Halkaas ayaa ka baxa 30% shidaalka dunida. Haddii dagaalka ka qarxo Khaliijka, qiimaha shidaalka ayaa irka isku shareeri doona. Dhaqaalaha dunida wuxuu galayaa qalalaase weyn. 4. Weerar nukliyeer. Halista ugu weyn waa haddii Israa'iil ay isku daydo inay weerar ku qaado xarumaha nukliyeerka Iiraan. Iiraan waxay ku jawaabi doontaa duqaymo ballaaran oo ku wajahan Israa'iil iyo xulufadeeda gobolka. Tani waxay si toos ah u soo jiidan kartaa Maraykanka iyo Ruushka, taasoo noqon karta qarka hore ee dagaalka caalamiga ah. 5. Dagaal saldhigyo oo wakiilo ah. Marka hore ayuu dagaalku u socdaa si dadban Yemen, Ciraaq, Suuriya, Lubnaan. Laakiin haddii wakiilada Iiraan iyo Israa'iil ama xulufadooda si wada jir ah isu galaan, dagaalku wuxuu isu rogi karaa mid caalami ah. Ugu dambayn, dagaalkan haddii uu qarxo, ma noqonayo mid ku kooban Iiraan iyo Israa'iil oo keliya. Wuxuu taabanayaa dhaqaalaha dunida, awoodaha waaweyn,
USA, Ruushka, Shiinaha iyo mustaqbalka gobolka Bariga Dhexe oo dhan. Gunaanad iyo digniin caalami ah. Marka la eego xaaladda maanta taagan, hal su'aal ayaa taagan: dagaalka Iran iyo Israa'iil ma qarxi doonaa mise waa dagaal hadal iyo hanjabaad ah oo keliya? Laakiin haddii si qoto dheer ah loo fiiriyo, taariikhda waxayna baraysaa in dagaalada ugu weyn ay mar walba ka bilaabmeen isku dhacyo yar oo aan la filaynin. Waxaa jirta xaqiiqo kale: labada dal ma awoodaan inay ka laabtaan dagaalkan haddii uu si dhab ah u qarxo, maxaa yeelay wuxuu noqday dagaal sharaf iyo jiritaan ah. Waxaa ashar ahaan looga baran karo: 1. Dunida ma joogto xaalad nabadeed, balse waxay taagan tahay qarka dagaal cusub. 2. Qalalaasaha Bariga Dhexe wuxuu noqon karaa fure u horseeda dagaal caalami ah. 3. Waxaa la joogaa xilli hogaamiyaasha adduunka ay u baahan yihiin xikmad iyo xakameyn, balse taa beddelkeeda waxay kordhinayaan hubka iyo hanjabaadaha. Digniinta ugu weyn: cabsida maanta socoto ma ahan mid sahlan. Haddii Iran iyo Israa'iil ay dagaalamaan si toos ah, waxaa dagaalka ka baxaya gobolka oo taaban doona Maraykanka, Ruushka, Shiinaha iyo xitaa Yurub. Ugu dambeyntiina, su'aashu ma ahan dagaalka ma imaan doonaa, balse waa goorma ayuu qarxi doonaa iyo sidee ayuu u bilaaban doonaa.